bismillaahi raxmaan raxiim. horta kolley aniga layma qaabilin oo xaggaa laygama soo dalban, macnaha qoyskayga ka mid oo yurub joogay muu jirin, balse hargeysa socodkan ka bilaabay saxaraha ilaa etoobiya, suudaan, saasaan libiya ku maray, mediterraneanka doonta saasaan ku raacay ilaa talyaaniga, kabacdi saasaan ugu gudbay switzerland oo aan faraha dhigtay layguna qaabilay. kolley waxa weeyaan safar tahriib haddii laga warramayo waxa weeyaan wax naxariis iyo raaxaysi laydhaa ma jiraan meesha badbaadinayo. waxa weeyaan anuu shaqsi ahaantayda inamaanu halkan iska raacnay, etoobiyaanu marnay, waanu ka gudubnay. tahriibta dhabta ah ee la sheegaa waxay ka bilaabantaa xadka u dhexeeya suudaan iyo etoobiya oo magaalada mantama laydhaa, halkaas oo lug lagaa gelinayo. kolley marka aad niilka ka tallaabaysaana rag badan ay halkaa ku dhinteen, rag iyo dumarba. kolley waa xad laba dal u dhexeeya, horena loo ogaa in sharci darro lagaga gudbo, tahriib la mariyo. kolley foojignaanteedana leh. safarka labaad ee saxaruhuna waa ka ugu khatarta badan leh, ee gaajo, hurdo la'aan iyo socod intaba aad walaalo noqonayso. waxa weeyaan anugu shaqsi ahaantayda saxaraa waxaanu ku jirnay 10 maalmood iyo 10 habeen oo intaa aanu liibiyaanka la joognay, inkastoo kala badhka hore ay suudaantuna waday, markii dambe ay liibiyaanku nala wareegeen. oo iska daa xataa baabuurka yar ee aanu saarannahay ee hardtopka ah, iyadoo caadi ahaan 10 qof uu qaadi karo, aanu day 30 ama 25 aanu ku saarnayn. kaadi dhaadhicis iyo waxaasi ma jirto. wakhtiga dilawarka ay kaadidu qabato unba jaaniska ka faa'iidaysan kartaa, inta kale waad isku sii daynaysa. kolley waxa weeyaan qof cuntadii ka yaraatay, hadh waayey, hurdo waayey, oo gaadhi hadh iyo habeenba saaran. kolley waxa weeyaan waxna xajin maayo. intaa waxaa noo dheer ul nagu socoto haddii rakaabku yar kala beeqbeeqo, sheekada hadday badiyaan in bir nalala dhaco. saasaanu liibiya ku galnay. magafaha sidii baanu ugu tagnay. magafahana wax naxariisi meesha ma taal. waxa weeyaan rag iyo dumar intaa dhexda ayay dumarku seexanayaan, raggu hareeraha, suuli tag iyo xaamale, baaldi weyn oo halka afka laga goyba lagu kaajayaa. magafaha laftiisu ilaahay hablaheenna ha ka hayo. kolley magafayaasha qaar dumarka damca iyo qaar wanaajiya labadaba way jiraan, inkastoo ka aanu ku beegannay uniyow naxariistu ka yar tagsanayd oo raggana aanu u roonaynu garaacayay. kolley dumarka qaarna damaco ka galay. ka gudbista magafuuna horta ilaahay inta maanta ku jirta ha u sakhiro. kolley ninka liibiyaankii ma yaqaano bini aadantinimo, diin dabaasha, isagoo islaama diintii hoosu eegi maayo, waa lacag unbu yaqaanaa. oo waa alfuluus xayaatak, lacagtaasunbaa kaa furan karta. haddii adduunkaaga aad hore u bixiso, kolley hore ayaa lagu sii wadayaa. tripoli saasaad ku gelaysaa. annagu horta ilaahay waa noo sakhiray. kolley jameecadayadii badidoodii waanu bixinay. wixii dee lacag waayey iyo wixii uu dee magafuu sidiisa u haystayba sidii baanu liibiya ku tagnay. kabacdi anuu liibiya waxaan joogay 4 bilood iyo badh. waddankan liibiya ma naqaano. haddiina la sii daayo meel alla meel jiha aanu naqaanaa ma jirto. haddii hargeysa tagana laydhaa ma naqaano jiha aynaga jirto. waxa weeyaan liibiya 4 bilood iyo badhkii aanu joognay waxaanu ku beegannay waqti jawigu xun yahay. waanu iska sugnay. aduu waxaa noo timid in jawigii laga baxo oo aanu sidii ugu diyaargarowno safar. waxa aanu habeenkaana lagu diyaariyey 5 doonyood, annagoo xero gaar ah ku jirna 2 doonyood iyo nin ay jalam laydhaa oo isaga laftiisa 3 doonyood ay ka baxayeen. kabacdi 5teedii doonyood, inkastoo doonteedu ay culays noqotay, sidii baan badda ku galnay. annagu waxaanu liibiya ka baxnay 4tii habeenimo
doontayduna waxay ahayd doontii ugu dambeysay waxa weeyaan wax lagu siin maayo raashin aad kaga baxdo badda waa biyo yar iyo biskud yar iyo bahalka taroonyada la idhaa iyo GPS iyo combos intaasiba ay dee jiheeyana ku yihiin kabacdi markii aanu badda saa u galnay waanu daadinay waxa la wixii biyo ahayd iyo biskudkii way haddii kale la isku dili karaa sidii baanu ku tawakulnay inkastoo taroonyaha iyagu uu ka xumaa qaybta samiicadda dhegta afartii doonyoodoo kale ma naqaano meel ay ku jihaysan yihiin laakiin aniga jiheeyahaygu waa Lampedusa waxa aanu nasiib u yeelanay in waagii noo bariyo kolley jawiga habeenkii iyo maalintii isku mid maaha cirka iyo dhulku waa noo buluug waxaweyaan annagoo saxarii la yaabanayn Suudaan la yaabanayn Ethiopia la yaabanayn Liibiya lafteeda la yaabanayn banu kii badda ku jirnaa kolley nin kastaba haadu way saaran tahay haddana waa yaqiintuun ha ka tegina waxaweyaan afartii iyo barkii galabnimo markay ahayd ayaa annaga badda nagu kacday baddii oo nagu kacsan maraakiibna aanaan hayn shidaalku gabaabsi naga soo yahay ayaa doon ka mida doonyihii aan wada soconay aanu helnay tii baanu isgarabsanay kolley waqtigaa haddii doon naga midi ay degtana qof ma yaqaan nin kastaaba waa tiisa siduu badbaadin lahaa haddii ilaahay ugu talagalana waa adiyo badda waxaana soo dulmartay diyaaraddii baanu go'a u toornay una dhaaftay waxoogaa yar kabacdi ayaa markab noo yimid markabkii ayaanu markiiba isu wacyigelinay hakicina fadhiista waxa weeyaan markabkii ayaa laba laash noo soo diray wuu nagu dul wareegay laba helikabtar baa noo yimid helikabtaradii baa khashaafada nagu shiday laashashkii baa noqday waxay soo qaadeen jaakeetadii badda kuwii baa naloo soo tuuray dabadeed wixii caruur iyo dumar ahaa baanu saarnay kolley aniga qudhayduna markiiba waan raacay markabkaanu sidii ku kornay laba habeen ayuuna markabku noola sii socday kabacdi waxaanu ka xidhanay magaalo Salerno la yidhaaho xagga xadka Austria sidii ayaanu ku badbaadnay shantaydii doomiyoodba markabkii baa qaaday ilaahay wax dhib ahna muu tusin kabacdi sidii baa haddana nala sii qiiqaybiyey Roma nala geeyey dib baa nala soo celiyey magaalo yar oo la yidhaahdo Alexandria ayaa aniga iyo 7 kale nala keenay kabacdi adoonu ka baxsanay si aan Talyaaniga farano looga dhigin sidii baan ku tagnay Salerno annagoo ka sii gudbay kolley waxaan tagay magaalada Milan la yidhaa halkaasoon islahaa inama aanu asxaabnahay aan ugu tegay inay guryo degayn aan moodayay kolley hurdadii ugu horreysay ee aan Yurub seexdaana kaniisad bay noqotay asxaabtii aanu tagay ee aan islahaa hadda nimankan in badan bay Yurub joogayna in aanu iskuul u dhacno inu gidaarkiisa seexana ayay noqotay sidii baan Switzerland ugu gudbay run ahaantii aniga qudhayda waxaan Switzerland iskugu dhiibay waxa ahayd waa wadan barwaaqo sooran oo IMF bangiga adduunka ayaa ku yaala laakiin Soomaalidu horta Switzerland waa Switzerland balse Soomaalidu magac bay u taqaanaa meeshan godka la yiraahdo waxa weeyaan waa 3 qaybood waa qayb Talyaaniga waa qayb Germaniya iyo qayb Faransiiska ka soo gooday horta waxa weeyaan arsaaqda Ilaahay halkan kuugu qoray tuka badan keelimaysid Yurub oo inta Allah maxfuudka kuugu taala in ka badan weliga heelimaysid kullay anoo dhalinyarta Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa aniga qudhaydu waxba kuma arag waxa weeyaan wadanka qofku nimcada uu ku haysto oo uu ku shukri noqo oo Ilaahay mar walba ku weyneeyo wax ka wanaagsan ma jirto taariibtana dhimasha ka horeysa